جزاك الله خيرا. سائل با wuxuu leeyahay xaaskayga baan shardi kula galay iyadoon ogeyn hadii aan guursado inay furmayso marka waan guursaday 2 sano kadib ayay ogaatay inaan guursaday inaad haweeneydaada kula heshiiso ku tiri hadii aan guursado waad iga furan tahay dabad qirsan tahay markaad guursato ka furmayso ama si muuqato u guurso ama si qarsoodi u guurso waana wax loo yaqaan culimada yiraahdaan at-talaaq al-mu'allaq furitaanka hada shay ku xidho shaygaad ku xidhayna la helo culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan furitaanku waa dhacaya markaaba way furmaysaa marka intaad sharti la gashay oo adigii shartigii jabisay oo guursatay oo hadana aad ka qarisay oo hadana aad iskala nooleed xaas ku ahay oo hadana markay ogaatay aad ku inkirtay adigoo og inaad been sheegayso waa qalad gabadhaas way ka furantay hadday ka furantayna waxay ahayd markaad la guursatay bay ka furantay muddada wixii ka bilowdo joogitaanka la joogtay saaxashada la saxeynaysan khalad bay ciidadiina way ka baxday soma diiba aad muddo wax qarsanaysa sanad ama 2 sano muddada hadday 3 caado heshay wayna furantay ciidadiina way u dhamaatay kaliya waxa weeye hadii aad dib isu guursanaysaan wayna dalqadihii ka dhamaanina dib u dalabo reerkeeda uga raadso haday ku yeesho hadii aadan guursanayninna hal caado oo raximkeedii yamiinkeeda lagu ogaanayo inuusan ilmo ku jirin maadaama aad saragteen bay tirsanaysaa kadibna way guursanaysaa marka dumarka beenta ka daay iyo ballanka bax xalaal daraar baa la qashaa haddaad geesi tahayna banaanka dhigo waxa haddaad